raxiim anigoo ka hadlay afka dhalinyarada gobolka Sool gaar ahaan dhalinyarada isu taagtay ka shaqeynta nabadeynta koonfurta calaadi ka dhacday waxaan halkan uga mahadnaqayaa madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa Cagjar oo soo gaarsiiyay deeq dadweynihii halkaasi ku barakacay madaxweynaha waxaan leenahay nagulihda abaalka iyo dawlad deegaanka Soomaalida aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa abaalkaasna waa idii haynaa waxaan kaloo halkan baaq uga dirayaa ama fariin dhalinyarada ku sugan gobolka Sool ardayda iyo dhalinyarada kaleba waxaan leeyahay waa dhalinyaro u kaca sidii aad uga qayb qaadan lahaydeen hawsha iyo nabadeynta ka taagan koonfurta gobolka Sool waxaan halkan uga mahadcelinayaa madaxweynaha Mustafa Cagjar madaxweynaha dawlad deegaanka Itoobiya Mustafa Cagjar waxaan leeyahay waa isku leenahay waanu ka filaynay garab istaagaadna garab istaagtay aad baanu kaaga mahadcelinaynaa haddaan nahay shacabka reer Sool dhalinta reer Sool iyo shacabka reer Soolba waanu ku mahadcelinaynaa waxaan ka codsanaynaa in hawsha loo daayo dawlad deegaanka iyo dawlad deegaanka Soomaalida in loo daayo ayaan ka codsanayaa iyo ergada kale sida isimada oo kale aan cid kale dhex galin ayaan codsanaynaa waxaan kaloo baaq u dirayaa dhalinta gobolka Sool meel kasta ay joogaan inay ka qayb qaataan ololaha nabadda sida aan uga qayb qaadanay annagu inay uga qayb qaataan ayaan ka codsanayaa 12 qof way naga tagaysaa waxaan kaloo rajaynayaa inay in ka badan ku soo biiri doonto ololaha nabadeed aan warsamaysadaayin waxaan ka mid ahay dhalinyarada gobolka aan la soo koobi karin aan uga diraynaa madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Mustafa Cagjar Soomaalidu waxay ku maamaadaan in dhalasho kugu dhiidhiyay in dhuun kugu dhaadhacay marka Mustafa Cagjar uu soo halgamay si wanaagsan ayuu u soo garab istaagay labada beelood oo walaalaha ah shaqaaqadu ku dhexmartay marka halkan waxaan uga mahadcelinaynaa madaxweynaha kililka shanaad oo Mustafa Cagjar oo halkaas ka qayb qaatay olole aad u ballaaran oo ah hadii ay ahayd qaybtii mucaawimaadka qaybtii ma garanaysaa ciidamada qaybtii ma garanaysaa dawada cidii u horeysay u soo gurmatayna noqday mahad gaar ah u direynaa bismillaah marka horeysa anagoo ah dhalinyaradii gobolka isku istaagtay nabadeynta waxaan halkan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha Mustafa Cagjar waxa tahay ninkii quriya ee Soomaaliyeed oo garab istaagay labada beelood ee walaalaha ee ku dagaalamaya deegaanada saaxdheer iyo qorile u dhaxaysa aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa dadkii soo barakacay anagoo ah dhalinyarada gobolka Sool waxaan aad ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo soo gaarsiiyay rug ahaantii caawimadii ugu horeysay taas oo ka soo qayb gashay ama qayb weyn ka ahayd wax soo gaarsiinta dadka abaaroobay dhalinyarta iyo shacabka gobolka Sool waxaan u mahadnaqaynaa madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaaliya Mustafa Cagjar aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa deeqda uu soo gaarsiiyay walaalaha Soomaaliyeed halkaas dagaalku ku dhexmaray aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa in Allaaliya intii ka qayb qaadatay iyo dhalinyarta gobolka Sool aad ugu mahadcelinayaa dhammaan dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya khaasatan madaxweynaha Mustafa Cagjar waxaan halkan ka cadeynayaa runtii oo aan xaqiiqada dhabta kaga hadlayaa walaalaha ee masaafadu dhexmartay ee dhibaatada isku haya dagaalada iyo colaadaha inaan cid kale hawshooda soo faragelin ayaan codsanayaa magacayga Shukri Aadan baa la yiraahdaa waxaan ka soo dadkii ka soo qaxay baan ku jiray Baabili marka mii magaalada waxa weeyaan waa laga soo qaxay dadkeen waa dad waxa weeyaan aan xisaab lahayn intii ariya waxay jateen meelahaas ku jira wixii kale baraxaas ay bareeyeen beeqo dhandhame ilaa waxa weey koore ayuu dadkii daasan yahay qaar baa daaqata meelolka yaa iska daasan qaar baa daaqada daantiisa ilaa tan waxa la daasan yahay jijiga marka saa darteed waxaan ka codsanaynaa wixii aad awoodi kartaan inaad dadkiina qabartaan waxa soo taarataan baan ka codsanaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh degmada ku nooshahay waxaan ku noolahay dhandhame degmada dhandhame ayaan ku noolahay waxaa raashin baa tiraa daawo biyo wax alla waxay hayaan lama yaqaan marka dadku u baaba'ayaa cudurro kala jaajaadina way ka dilaaceen marka sarteed waxaan ka codsanaynaa intaas waxay gelisaan ودكينا وحوي وحقرب ويلكاسا وحوي نكي وحقرب بaa dadka
sidoo kale haddana qalaabaasa ayaa dhacay dadkii soomaalida ahaa waa la saaray soomaalida yihiin waa la saaray haddana sidoo kale tol qaxooti maanta waxay maanta noogu xumayd dhabarjabku weyn nagu dhacay dadkii soomaalida ahay saa waxay la leen karin ilaa qofkaa ka soo baxdo qaxooti waa waddankii UK inuu ku Itoobiya u yahay sida waddankii ugu noqon karaya qaxooti qaxooti waxbaan qabanay magac baa laleeyahay laakiin wax loo qabta way yaratay ma jirto dadka raxaad u dhimanaya kulligood kumalihii wax qabo hadda sababtoo ah adiga hayaa dagal u bax maxay ahayd taraneen sidii ka horsi duubaangeli waxaa la dilanay culimo oo sheekh ah iyo ardaydiisa afar qof watay waxaan weynay meydkii wax noo keena waxaan aadnay dowladda waxaan dadkii meydkada soo qaadano waxay annaga ma galayno yaa galay hor annagii ma aadi karno sababta kuwa la dilaya maa lamidna so waay marka annaga maxaa lanoo bartilmaamseed lanooga dhigto lanoo leynaya annaga maxaa nahay anu ninka qoriga qaatay maanta intuu banaanka u baxay dagaalamay wallahi geesinimo aan u arka sababta waxa meesha aan ku arkay maaha wax xaqa meesha ka socda maaha aniga maanta shaksiyan haddaan ahay dowladeeda maartay makilinka intaa le waxaan raadsaday shaqo waan ka wahay sababtoo ah wax walba waxaa la hordhigaya maad aragta albaabka ka xiran albaabka kale ku furna waxaan kaa codsanaya dowladda federaalka maanta adigaa dhex jooga inaad soomaalinimadanada noo socoto inaan xaq u yeelano dalkanagana socono shirkan oo muddo 3 cisho ah ka socday magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya kana qayb galeen madax dhaqameed iyo waxgarad tiro badani ayaa la soo gabagabeeyay lagana soo saaray go'aamo qodobo dhowr ah shirkan oo la sheegay in lagaga hadlayay iskaashiga iyo wax wada qabsiga beelahaasi go'aamadii shirkaasi laga soo saaray ayaa waxaa halkaasi ka akhriyay Professor Cabdisalaan Yaasiin baad basharin guddidaada ma ansixiseen golaha guurtida waxaa hoos imanaya guddiyo u xil saaran howlo gaar ah sida guddida dhaqaalaha guddida xidhiidhinta iyo midaynta direed iyo guddida haweenka iyo guddida dhalinyarada ma ansixiseen golaha guurtida beelweynta direed ayaa soo sheegi doona goorta iyo meesha uu ka qabsoomi doono shirweynaha labaad ee beelweynta direed ma ansixiseen dhammaan madax dhaqameedka qowmiyadda direed waxay baarnabadeed u dirayaan in la nabadeeyo meel kasta oo colaad ama xiisad afgarad ama xiisad ay ka dhex taagan tahay beelaha direed iyo beelaha kale ay ku wada dhaqan yihiin laba waxa kale oo aan baaq nabadeed u diraynaa in nabad lagu soo dabaalo wixii colaada ee ka dhex jira beelaha direed iyo soomaalida kale sida xiisadda ka taagan tulli guuleed ee u dhaxaysa beesha jaarso beesha dir jaarso iyo beesha geerikombo saddex waxa kale oo aan baarnabadeed u diraynaa xiisadda colaadeed ee deegaanka Mooyaale ee u dhaxeeya labada beelood ee direed ee walaalaha ah ee kala ah beesha Garadir iyo Qoradir iyo waxaan xoojinaynaa dadaal nabadeed ee beeshaasi dirka laga dhaxwado imika oo bilaabmay afar baaq kale oo nabadeed waxaan u diraynaa xiisadda ka taagan deegaanka Diridhawe ee ka dhaxaysa beelaha Ciise Madoobe Dir iyo qowmiyadda Oroomada iyo Tancafarta waxa kale oo qowmiyadda direed ay u diraysaa baarnabadeed dhammaan deegaanada ay ku jirto xasilooni darro ha noqoto deegaanada beesha direed ama xuduudaha ay la wadaagto Soomaalida iyo qowmiyadaha lix shirweynuhu wuxuu si buuxda u taageeraya nabadda midnimada iyo wada noolaanshaha ummadaha ku wada nool geeska Afrika gebagebe iyo gunaanad qowmiyadda direed oo ah tan ugu ballaaran uguna faca weyn geeska Afrika waxay si buuxda u taageeraysaa isbeddelka dhaqan dhaqaale siyaasadeed isdhexgal
iyo waxwada qabsi ee ka socda geeska Afrika kana bilaabmay jamhuuriyadda federaalka ee Itoobiya. madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar Cagjar ayaa waraysi gaar ah oo VOA-du siiyay waxa uu ku sheegay in maamulkiisu soo dhaweynayo in Soomaalida ay maalgashi ku sameeyaan deegaanada maamulkiisa. Cagjar ayaa dhinaca kale waxa uu tilmaamay in aanu khuseyn maamulkiisa shir ay Soomaali kala gedisan ku yeesheen magaalada Addis Ababa xarunta dalka Itoobiya. wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye ayuu u warramay Cagjar mar dhawaantan uu boqday madaxweynaha deegaanada markaan nabadna xaaladda deegaanka gudaheeda waxa jira shirar dad kamida Soomaalida deegaanku ay ku abaabulayeen magaalada Addis Ababa aan dareenayna jira mar hadad xuriyatul qowl iyo la soo qaaday dadku madax banaan yihiin dadka deegaanku mararka qaar ama baraha bulshada ku xidhiidhan noqoto ama meel ka noqoto dareen ka soo noqonaya nidaamka ama maamulkaagu wuxuu wado ama dhaliilaya jira arrimahaas idinku soo waragtaan dhaliisha iyo xuriyatul qowlku waa socdaan mar hadda tira dadku xor weeyaan inay hadlaan si rabaan ay u dhaqmaan mucaaradadu iska imanaysa oo u baahannahay mucaaradada dawladda mucaarad leh ma jirto afkaarta aan wadno kulliga dadku kuma qanci karaan dadku kulli qof waliba fikir fiican buu rabaa lama oran karo qabyaalada la dagaalanto qof qabiil jecel baa jira tugnu hadda la dagaalanto qof tugnu jecel baa jira hadda tira si balaaran qoomi aan u fikirno qof inuu si hoos u fikra jecel baa jira hadda tira xurriyad dadka hala siiyo qof in la caburiyo jecel baa jira marka waa iska dabiici in dad badan ay diidayaan awal hore marka dhaqan meesha aan ka jirin baa jira oo qofku haddii mucaarad noqdo inuu hadli karin markaas waxa dareenaa waxa jiray in mucaarad una jirin hadda marka dadku tiba la soo qabsan la yihiin dadku ama social media ama meelaha kale marka dhaleecayn xukuumadda ama dhaleecayn shakhsiba nala soo jeediyo dad badan baa argagaxaya oo u qaadanaya in mucaarad xoog leh ay soo noolaatay ma aha mucaarad awal jirta kama duwana kaliya waxa isbedelay in dadka hadda ay hadli karaan oo wax raban sheegi karaan tan waan arintan soo dhaweynaa waa wax maartay tadawurka bulshada u wanaagsan waa arrin fiican aan qabaano arintan la xiriirta shirarka anagu maanta waxaan soo nahay dad ilaa 8 milyan lagu qiyaaso Soomaaliya oo ku dhex jira wadan 100 milyan uma baahnin shirar qabaa'il uma baahnin wixii halkan soo dhigay waa shir qabiil iyo fikir qabiil iyo iyadoo la isku urursanayo jifajif arintaas waan soo aragnay xanuunkeedii toddobaadkii sano u dambeysay wixii ummadda halka isha u yeelay iyada weeyaan shirka hadda aad ka hadlaysay sabab lagu qabanayaa shirkaas boqolkiiba 90 dadka qabanaya dad deegaanka u dhashay ma wadad wadamada jaarka ka yimid weeyaan hayb ahaan dadkaas la hayba oo deegaanka degan way jiraan laakiin dadka hadda shirka aad sabab imanaya boqolkiiba 90 waan xaqiijinay dad deegaanka u dhashay ma shirkaas marka anaga nama khusay deegaan ahaan shir anaga nolol qabanayo deegaankana wax ku saabsan lagu soo qaadayo uma arkaano wixii ka soo baxana wax xukuumadana khusay ma noqonayo dadkuna dee wuu shiri karaa حق بيقولي مرة دي الديمقراطية بجرتها كم الدوانا شر الوقفة لوساكا يو هراري يو جوهانسبرغ يو هاي لواندا يو anywhere أدونك ما يشرب وقف كشري كرا لو مدير كرو مركا أتصبين كشران صحوي حق بيقوليهن لكن شر تجان كصومالي خصية شركة سماها هدي أي شران ضد ديان كسو كذا oo hayb ahaan waqib galiya shirar noocaas oo dad wadamada jaarka ka yimid qabsanayaan waxaanu leenahay arinta ka fijignaada cawaaq xumo keenaysa beel loo shiraa meel lama gaarsiin soo ognahay cidii marka shir aan khuseyn deegaanka ka qayb gasha deegaanka u dhalatay waxaan oran karnaa waxay maaragtay jabisay shuruucdii u yaalay qawaaniintii u yaalay deegaanka iyadoo aan fasax ka haysan xukuumadda waliba marka arintaas aan u aragnaa mustaqbalkan waxaan jecelnahay in dadyowa deegaanka ka soo jeeda ay ka shaqeeyaan midnimada iyo adkaynta fikirka qoomiga ee Soomaalida maadaama maanta Itoobiya qoomiyadooda kala duwan iyagoo kala afa iyagoo kala diina magac qoomiyad ay kulligood ku urursanayaan anaguna maanta uma taaghayno shirar dir iyo shirar daarood iyo shirar hawiye iyo shirar waxaasi uma taaghayno waxaan u baahanahay shir Soomaaliyeed inaan qabsano shir Soomaaliyeed oo dhammaan ummadda Soomaaliyeed deegaanka degta dadka deegaanka u dhashay waliba ma aha kuwa u hayb sheeganaya laakiin deegaanka aan u dhalano jaarka imanaya kuwaas ma shaqadooda ma ina galaana ma taana xukuumadda kulay federaalka kala hadli doona hadii la yaan qabanayna shir balaaran noocaas oo Soomaaliyeed baa dhacaya oo ka dhici doona magaalada Guday muddo aan fogeyn wixii tabashooyin jira wixii talooyin jira halkeena oran lahayn
cidda deegaanka ka mida saad sheegtay adigu ama dadka deegaanka ah haddiiba ay tabasho qabaan amaba ay qabaan in nidaamkii iyo xukuumadda madaxweynaha ka tahay aanay sida wax wada ku qanacsanayn warbaahintiina saad sheegtay cid u adeegsanaysaa cidda doonaysa inay kusoo abarto ama maamulkaaga nidaamkaaga wixii ka qaldan u sheegto ama waxay tabanayaan buu soo gudbiso halkii la soo maraya way dadka qaar baa waxay qabaan inay leeyihiin madaxweyne Mustafa cid baa ku xeeran meel loo gaadha ma jirto meel lagu gaadha sidee lagu soo gaaraya taas waa laga yaabaa inay caqabad xaggan ka jiraan inkastoo maamulku iska cusbaa oo weli uuna maaragtay procedureski loo baahnaa iyo dadka la kulankiisa hawshiisa laga yaabo inay dhalila ka jiraan haddana ciddii ilaa intii hadda aan imid ama ururo bulsho ha noqdaan ama ha noqdaan qabaa'ilo odayaal ka socda qaabilaad runtii aad u ballaaran baan samayn jiray waxyaalaha hadda lagu dhaliilo waxaa ka mid ah qaabilaadda faraha badan aniga xaggayga laguma dhaliilo qaabilaad la'aan in fact waxa cawdo xafiiska wasaaradaha iyo yaa wada shaqayntii ay saamaysayba maadaama habeenii maalin odayaal aan qaabilayno haddii ay jirto qaabilaad intaa ka badan cid u baahan baabku wuu u furan yahay laakiin dee shaqooyinku maadaama ay badan yihiin waa laga yaabaa qofku isaga oo raba inuu ku arko weegan in laga yaabo 2 week 3 week inay ku qaadato taas wax iska caadi ah wixii talooyin iyo wixii dhaliilana xaq bay dadku leeyihiin way sheegi karaan ilaacadaha kaliya ma kan deegaanku ay leedahay dawladdu ay leedahay maalgeliso SRTV ka sheegi karaan dhaliisha soo fadhiistaan loobana diido wayna sheegaan maalmo baada dadka laakiin dhaliisha sheeganaya dadka cabanaya way noqon dad deegaanka u dhashay qof aan deegaanka u dhalan oo ama Soomaaliya ka soo jeeda ama Djibouti ka soo jeeda ama Amerika ka soo jeeda meelaha uu ka soo jeedo dhaliisheeda inuu gudbiya ka fiican inuu dhaliilo maamulka ka jira deegaanka marka dadkiina Soomaalidu cid walba qabiil aan degin deegaanka Soomaaliyeed ma jiro 37 qabiil baa dega qabiilo deegaanka naga dega oo dhulkan kale Soomaalida ama Djibouti ama meelaha kale Somaliland Soomaaliya Puntland aan degin way jiraan laakiin qabiil xaggan meelahan dega oo xagga aan degin ma jiro macnaha waxaan ku leeyahay waxa u badan qabaa'ilada Soomaalida kuwa deegaanka Soomaalida ugu badan oo dhammaan laga helaa sidaas ay tahay haddana cid walba oo inay hayb sheegato oo tiraahdo maadaama reerkanu halka dego waxaan ka soo jeedaa halkaas sax ma marka arrimaha u baahan in la xaliyana kuwaas ah transnational identitieska qofku uu gaar ahaan dadka kaaba qabiilka ay oranayaan waxaan ka hadli karaa siyaasadda deegaanka Soomaalida maadaama aan qabiil hebel ahay oo qabiil hebelna xagga uu qeyb ka digo siyaasaddaas ma soconayso mana ogolin waana arrimaha hadda aad muddo in fahan darro badan ay ka jirto salaadiin la yaqaano oo waaweyn oo caana ama ugaasiyo la yaqaano oo siyaasadaha dalalka jaarka ah qayb ka ah yaa maanta asaba jooga oo waxaan ka hadlaynaa xaaladda siyaasadeed deegaanka Soomaalida waa khalad taas arrimahaas in lagu aanto baan soo jeedin lahaa markale xaaji maxamed nuur isaaq oo ah boqorka guud ee beelaha direed oo lagu doortay shirkii beelaha direed uga qabsamay magaalada Addis Ababa ayaa jawaab ka bixiyay hadal ka soo yeedhay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Cagjar kaasi oo ka soo horjeesaday shirkaasi lagu qabtay magaalada Addis Ababa xaaji maxamed nuur isaaq oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri Mustafa aniga waxaan u sheegayaa aniga u nasiixaynayo waa madaxweynaheeni waa maartay oo nin walaalkeena arinta uu leeyahay meesha waxa ku shiraya dad ajnabi ah ku shiray uu leeyahay aniga waxaan leeyahay shalayna waan iri haddana waan ku celinaya waa inuu raali gelin oo ku bixiya sababtoo waxay tahay war heede Mustafa adiga naftirka xagee ka timid adiga naftirkaadi xagee laga keenay Kenya baa ka timid anaga waas naqaana miya walaalkay ila dhashay la shaqaynaynin oo Suleymaan anoo ila dhashay hada hortaadan fadhiya anigu maartay waan ku sheegayaa marka Mustafa dadka maanta shirayada dan ku tahay dantaada weeye hadii gacmaha qabsataan horta yaad mas'uul u noqonaysaa dad qabin qofku markuu dad leeyahay ayaa mas'uul u noqon kara marka walaalo macaano waxaan ku leeyahay anigu oo aan ku nasiixaynaya dadkii aan qarka kugu tuurine Abdi Maxamed Umar waxa qarka ka tuuray ragii oo la taliyaashii daayan suxun oo la taliyan ayaa qarka ka tuuray anaga mucaarad kugu manihin shakhsiyan aniga maanta runtan ku sheegaya waa ninka dir loo caleem saaray oo boqorka dir ah maanta aniga weeyeen walaakiin aniga ma rabo in maartay kililkeen la qalqalayo oo madaxweynahan waxaan jirin lagu sheego aniga dooni maayo
marka aniga waxaan ku leeyahay arrimahaas ka fiirso dadka meesha ku shiray waa dad walaalahaada oo wada dhashay shalayna waan sheegay allah subxaanahu wa tacaala uu yidhi wajacalnaakum shucuuba wa qabaa'ila litacaarafuu buu yidhi maxaa ka dambe hadan ina akramakum inda allahi ataqaakum wallahi horta shirkan oo direed shir oo dowladda soomaaliya oo kelilkeeda oo burburinayo ma aha shirkan direed maanta wuxuu maaragtay horseed u yahay geesa africa oo dhan ayuu wax ka qaban doonaa marna ma aha ilaa nina aqalkiisa ma dumiye qofka hadduu doqon yahay mooyaan waxaa layidhi doqon waan ha u gargaarin waan ha gargaarsanin ilaan doqon midda markaasun buu arkayaa mooyaan midda kale arki maayo marka waxa weeyaan ma aha qof doqon ayaa aqalkiisa burburiyi mooyaane anaga dowladdeeni inaan jijibino marna kuma tala jirno shirka la qabanayana haddii ummadda soomaaliya danteed ay tahay soomaali weyn danteed ay tahay qofkaas waa ka qayb galaya idkaa celin karta ma jirte ilaan aqalkaad idkaa celin karta ma jirte aqalka waa la siyaasiga Faarax Macalin oo horey u soo noqday gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka dalka Kenya ayaa maalintii shalay ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Jigjiga. Faarax Macalin oo horey si weyn u dhaliili jiray siyaasadda maamulkii Cabdi Maxamuud Cumar ee meesha ka baxay ayaa waxa uu safarkan ku wehelinayay madaxweynaha cusub ee deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar Cagjar iyo wafdi uu hogaaminayay oo shalay soo gaadhay magaalada Jigjiga. Faarax ayaa waxa uu ka hadlay safarka uu ku yimid magaalada Jigjiga. hadda ugu horeysa Jigjiga animaado waana ku faraxsanahay Jigjiga oo wax badan iska bedelay oo shacabkeedii maartay xurriyad iyo nolol maartay lagu baaqay insha Allah oo isleenahay isbedel weyn oo dhici doono oo isbedelkan uu saameyn doono maxay ahayd gobolka kilarka shanaad oo Soomaalida ku nooshay Somali State kali aanan ahayn oo ay saameyn doonto Ethiopia inteedii kale Jamhuuriyadda Soomaaliya Kenya Djibouti Soomaaliya dhammaan meesha ku nooshay waayo waxa weeyaan annaga iyo idinka noloshiina way isku xiran tahay nolosha annaga aniga meesha laga soo doortay hadda 360,000 oo qaxooti ayaa joogta qaxootiga meesha u badan yahay ka imaadeen gobolkan bay ka imaadeen inta kalena Jamhuuriyadda Soomaaliya bay ka imaadeen marka inay Soomaaliya nabad noqoto maxay ahayd Somali State oo inta ay nabad noqoto oo dadkina ay soo noqdaan annagana dad isku furan oo wada dhashay oo maartay bamishtari iyo exchange cultural exchanges iyo thaqaafi wax kasta isku imaanayo laakiin meel kasta ay nolol ka jirto ayaa dan ugu jirta haddii meel ay qaraxdo ay halawdo meel kasta oo kale dhanba waxa weeyaan dhibku gaaraya marka anigoo hadda Kenyaane oo laakiin qowmiyadda Soomaalida ka imaaday walaalkiina waxaan ku faraxsanahay maanta wajiga inta ay leedahay iyo nasriga iyo wanaaga u soo socdo ummadda Soomaaliyeed oo ku nool Somali State halka oo saameyn ay ku yeelan doonto Soomaalida Djibouti Soomaalida Soomaaliya Soomaalida Kenya kulli saameyn ku yeelan doonto oo isbedel nolosha ay imaan doonto nabadgelyana la heli doono saas ayaan maartay aan aad ugu faraxsanahay maanta ka qayb